madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku soo wajahan gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. qabanqaabo xoogan ayaana laga dareemayaa qaybo badan oo ka mid ah gudaha caasimadda Muqdisho si ay uga qayb qaataan soo dhaweynta madaxweynihii hore ee Soomaaliya. sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa isaguna waxa uu ku wajahan yahay magaalada Doolow ee gobolkaasi Gedo. soo dhawaada wada haday tahay markaaga kuugu horeysay ee soo booqato halkan subscribe noo saar noon like gare muuqaalkan waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada. ila dhaxal gal ah oo lagu kalsoonaan kara waxa ay ku waramayaan in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku soo jeedo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Farmaajo ayaa u imanaya gudaha caasimadda Muqdisho si uu si ambaqaado yagleelida madal cusub oo markaasi mucaaradka ay ku midoobayaan. waxaana wararku ay tilmaamayaan imaanshiyaha Farmaajo inay ka dambeysay ka gadaal markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud uu laba garab u kala dhigay xubnaha mucaaradka isla markaana uu kala dhantaalay. waxaana markan timid in guud ahaanba mar kale ay dib isu abaabulayaan xubnaha mucaaradka. Shariif ayaana la tilmaamayaa inuu uga madax fiiqan yahay xubnaha u yeeray Farmaajo si markaasi uga qayb qaato dhismaha madasha cusub. magaalada Dooxa ee caasimadda wadankaasi Qatar ayuu ka soo kicitimaya Farmaajo waxaana uu ku soo wajahan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. wararka aynu helayno waxa ay tilmaamayaan inuu fariisin ka dhiganayo qaybo ka mid ah xerada Miranaayo halkaasi oo ay ku sugan yihiin saraakiil saaxiibo dowla. sidoo kale waxaa ka qayb qaadanaya soo dhaweynta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saraakiil uu ku jiro gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Finish. warar kale ayaa ku waramaya in sidoo kale uu fariisin ka dhigan karo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo aagaela boorka caasimadda Muqdisho halkaasi oo la tilmaamayo in amnigiisa lagu xaqiijinayo. dabaabaad dagaal iyo ciidamo tirabeel ayaa la tilmaamayaa in aaga elboorka lagu diyaariyay kuwaasi oo ka qayb qaadanaya sugidda amniga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si markaasi loo ilaaliyo badqabkiisa. waxaana la tilmaamayaa in dadyow aad u tiro badan la diyaarinayo si ay markaasi safaf dheer ay uga galaan soo dhaweynta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana banaanka hore ee garoonka caasimadda Muqdisho ay si weyn uga soo dhaweynayaan. arrintaasi waxaa ka shaqaynaya dad saaxiibo dhowla madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay qaarkood yihiin saraakiil xilal ka haya dowladda dhexe ee Soomaaliya halka sidoo kalena xilal kala duwan ay hore u soo qabteen qaarkood. waxaa lagu soo waramayaa in imaashiyaha Farmaajo ay timid ka gadaal markii qadka telefoonka dhugaan uu kula hadlay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed isla markaana dhinacyadu ay iska wareysteen suuragalnimada in guud ahaanba la sameeyo madal mucaarad oo xoogan taasi oo guud ahaanba ka biyo diidi karta qorshe waliba oo markaasi baalmarsan dastuurka iyo marsishada dowladda federaalka Soomaaliya ee qorshayaashu ay markaasi doonayso. waxaana la tilmaamayaa in dhinacyadu ay ku ballameen inay isugu yimaadaan magaalada caasimadda ee Muqdisho si loo sii ambaqaado dhismaha madashan cusub oo laga yagleelayo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxaa la tilmaamayaa in madashan ay ku midaysan yihiin madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Farmaajo. Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale weheliya. warar kale ayaa ku waramaya in sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuurna uu madashaasi qayb ka yahay. waxay noqonaysaa madal mucaarad oo awood leh taasi oo markaasi dhinacyadu ay ku buhoobi karaan haddii Farmaajo madashaasi uga dhawaaqo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. ila kale ayaa waxa ay ku waramayaan in qaar ka mid ah madaxda maamulada dalka ay qayb ka yihiin qorshaha madashan lagu yagleelayo. waxaana ka mid ah Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen hogaamiyaha Koonfur Galbeed oo dhowaan ka garab baxay madaxweynihii hore madaxweynaha talada jooga Xasan Sheekh Maxamuud ka gadaal dhowaan xisbigiisa markii uu ka soo muuqday. waxaana la tilmaamayaa hadda inay isku dhaceen isla markaana labada mas'uul ay kala tageen. waxaana la tilmaamayaa in isaguna mucaaradka uu markan ku biirayo. sidoo kale waxaa qayb ka Saciid Cabdullaahi Dane madaxweynaha dowladda Puntland oo isaguna la tilmaamayo in mucaaradkan uu qayb ka yahay isla markaana garabka Farmaajo iyo Shariif uu markan joogo. waxaa sidoo kale suurtagal ah Axmed Maxamed Islaam Madoobe in isaguna sidoo kale uu qayb ka yahay. abaabulkan xoogan ayaa maalmihii ugu dambeeyay si weyn uga soconayay gudaha caasimadda Muqdisho kaasi oo lagu soo dhaweynayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaana wararku ay tilmaamayaan in qorshe cusub uu yahay isla markaana guud ahaanba lagu wajahayo madaxweynaha talada jooga. mucaaradkuna waxa uu noqon doonaa mucaarad sal adag oo ay dhisayaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale Shariif Sheekh Axmed. waana madal cusub oo sidoo kale mucaarada. tani waxa ay timid ka gadaal markii laba garab ugu kala dhantaalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud xubnaha mucaaradka ahaa. waxaana la tilmaamayaa in qaarkood uu guud ahaanba ka saaray halka qaar yar ay ku soo hareen. waana Farmaajo
waana Shariif Sheekh Axmed, Xasan Cali Khayre, Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo sidoo kale Rooble. waxaana la tilmaamayaa hadda in madashu la ballaarinayo isla markaana dad cusub ay ku soo beerayaan. Farmaajo ayaana qaybka waxaana la tilmaamayaa inay noqon doonto madashii ugu ballaarneyd ee dhowaan laga yegleela gudaha Soomaaliya, waana mucaaradkii ugu cuslaa oo ay wajihi doonto dowladda dhexe ee Soomaaliya. dhowaan ayay mucaaradka uu la goostay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay villa Soomaaliya ka bilaabeen abaabul iyo sidoo kale inay la shiraan madaxweynaha talada jooga. waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba shirkaasi ay isku waafaqeen ka gadaal markii ay soo saareen war murtiyada dhowr qodob ka kooban oo ay uga waramayaan guud ahaanba in ay markaasi ku dhawaaqayaan nooca doorasho ee dhowaan dalka uu galayo. waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba arrintaasi ay isku waafaqeen dhinacyada ayna isla meel dhigeen. dhanka kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayay wararku tilmaamayaan inuu ku jeedo gudaha magaalada Doolow ee gobolkaasi Gedo. Talaabadan ayaa timid ka gadaal markii guud ahaanba wararka la helayo ay tilmaamayaan in halkaasi uu tagayo qorshe ballaaran kaasi uu ka damacsan yahay in guud ahaanba fariisimo iyo sidoo kale xerooyin uu halkaasi uga sameeyo ciidamo dhowaan laga soo daabulayo gudaha magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland. qorshahan ayaa la tilmaamayaa in Itoobiya ay kala shaqaynayso xerooyin military oo ballaaran halkaasi looga sameynayo ciidamada militariga ee markaasi Jubbaland ee halkaasi laga dejinayo ee dagaalka la galayo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Maxamuud Sayidaadan ayaa la tilmaamayaa in tallaabadaasi horaan uu uga wakiishay, balse wararku waxa ay tilmaamayaan in tallaabadaasi uu ku fashilmay. Itoobiya ayaana la tilmaamayaa hadda inay casuumayso isla markaana uu degayo Dolo-Ado oo dhinaca gobolka Liibaan xigta ee dowlad deegaanka, halkaas sidoo kale uu ka wadayo abaabulka gudaha magaalada Doolow ee gobolkaasi Gedo. dhaqdhaqaaqyo ayaana la tilmaamayaa hadda inay ka bilowdeen gudaha magaalada Doolow. soo dhoweynta madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaana la tilmaamayaa halkaasi inay ka bilaaban doonto. tani ayaa timid ka gadaal markii dhowaan ay fashilmeen wadahadallo qadka telefoonka uu dhex waray madaxweynaha Jubbaland iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda. waxaana la tilmaamayaa in la isku waafaqi waayey guud ahaanba sida loo wajahayo qorshaha gobolka Gedo. waxaana la tilmaamayaa in dhinacyadu ay ku hesheen waayeen. madaxweyne xasan sheekh maxamuud laba arrin ayaa la hordhigay kaasi oo ah guud ahaanba in Axmed Maxamed Islaam Madoobe mandatekiisa uu aqbalay iyo sidoo kale in guud ahaanba uu sidoo kale Axmed Madoobe uusan aqonayn nooca doorasho ee dhowaan la shaaciyey. waxaana la tilmaamayaa in labadaasi tallaabo uu madaxweynuhu ka biyadiiday in guud ahaanba uu aqbalo. Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaana la tilmaamayaa in guud ahaanba halkiisa uu kasii wadayo. dowladuna waxa ay ciidamo iyo sidoo kale sanad ciidan ay ku daabulaysaa Balad Xawo. saraakiil ka tirsan dowladda waddankaasi Masaarida ayaa gaaray maanta gudaha magaalada Balad Xawo gaar ahaan xero UK, halkaasi oo ay fariisin ka dhigan doonaan ciidamada Masaarida ee dhowaan halkaasi la geeni doono. waxaana la tilmaamayaa in indhayn ay halkaasi u tageen. xiisada dhinacyada ayaana xoogeysanaysa, waxaana guud ahaan mar kale curanaysa xiisad kale oo markaasi gobolka ka bilaaban doonta iyo siyaasad kullo lamid oo markaasi u dhaxaysa dowladaha Masar iyo sidoo kale Itoobiya oo iyagu si weyn isu neceb. waxaana la tilmaamayaa in xiisada hadda wejiyo kale ay leedahay. Madoobena waxa uu diyaarinayaa in dabaabaad dagaal uu la tago gudaha magaalada Doolow, halkaasina uu ka ambaqaado dagaalka uu ku wajahayo dowladda dhexe ee Soomaaliya. laba sawga xiisadan iyo halka ay saldhigan doonto.